horeen waxaan kugu soo dhaweynayaa telefishinka xisbiga UPD Dr. Samarin Maxamed Xuseen waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaasatan kuwoodii dumarka maanta halkan waxaan sugu imaanaysaan wada ognahaba ka soo qayb aan waliba aan xubin ka ahayn inaan ka soo qayb galno qodbadii maanta uu ku soo bandhigay Cabdiraxmaan Odawa inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka Galmudug waxaan ku weydiinayaa laba su'aal oo kala ah oo aan isku ka raacinayo ugu horeen maxaad ka taqaanaa maamulka Galmudug xigtana waxaan ku weydiinayaa Cabdiraxmaan Odawa maxaad ka taqaanaa ما شاء الله تبارك الله هذا يا أمة ما أنت هذا حاجة فرح سنة إن عاو عدك يقصيه تلفزيون كUPD وانسود وينا ما شاء الله وأنا بقعدين يا تلفزيون إن يلانو هذا كتر سنة محاها حسب UPD لو سؤال ويدي لو سؤال أدو في عن وحياة القلمذك محاكة تقانا كو قلمذك محاكة قانا هذا وحنا يحلبان قلمذك أو فدرالة labo galmudug waa ka soo shaqeeyay waqtigii dhibka jiray dhibaatada badan jirtay Soomaaliya kala qoqobka badnaa jiray ayaa waxaan ka soo shaqeeyay galmudug special waxaan ka soo shaqeeyay meesha hadda la isku yiraahdo galmudug gaalkacyo koonfurteeda iyo muxuu ahaa iyo dhinaca kale oo galgaduud ah waxaan xasuustaa markii aan dib u noqdo taariikhda 1994 galmudug waxay ahayd meel Ilaahay og yahay xaalkeeda oo aan muxuu ahaa aan maamul iska dhaafay guryaha wada hal guri aan ka dhisneen waxay ahayd meel aad maxay markaas anagoo u shaqeynaa wili waxay ahayd waqtigii oo aad u adkaa dagaalada sokeeyay jiray haddana baan la saaray oo la yiri kama shaqeyn karaan hay'adaha samafalka waxaan ahayn dadka Soomaaliyeed ee u dhashay Galmudug ay ku dhiiraday anagoo markaas la shaqeynaa hay'adaha samafalka ICRC iyo bisha cas ee Soomaaliyeed aan ku dhiiranay inaan tagno meeshaas MCJ ka furno koonfurta markaas gaalkacyo ilaa iyo muxuu ahaa galgaduud waxaan ka furnay Dhuusamareeb Ceelbuur iyo muxuu ahaa Galinsoor Cadaado waa meelahan ka furnay Caawud Waaqoom inta la isku dhaho maanta Galmudugta saxda ah waxaan xasuustaa waqtiyada aan ka shaqeyn jiray maanta Galmudug dadka yaqaano waxa fiicnaan jirta taariikhda dib inay u raacaan sidii lagu soo bilaabay maamul goboleed qeyr Allah siiye hadda dhow dhintay kiimiko Allah u naxariisto waa dadka soo bilaabay Galmudug inay wax noqoto madaxweyne ka noqday hagaajiyay lagu dhiirado qof kasta oo reer Galmudug ah inuu muxuu ahaa guri ka dhisto muxuu ahaa gaalkacyo Ilaahay mahadiis waqtigii waa u dhamaaday waxa haddana muxuu ahaa ka noqday caalin waxa ka noqday ninka la yiraahdo caalin madaxweyne saddex madaxweyne isku bedeshay madaxweynihii afraad oo si xor ah oo baarlamaan lagu soo doorto wuxuu ahaa Cabdikariin waxa soo maray Cabdi Qaybdiid caalin iyo muxuu ahaa waxa soo mareen iyo kiimiko ninka xorka lagu doorto baarlamaan la sameeyay wuxuu ahaa Cabdikariin haddana waa Cabdikariin markuu asaga dhibaato xagga caafimaad u timid oo asaga ka tagay oo haddana uu qabtay xaaf intaasoo madaxweyne oo kala duwan ayaa soo martay hadda waxaan u rajaynayaa Odawa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen walaalkay ani Maryam Maxamed Xuseen Allah waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonnimo inuu noqdo ninka bixi karo inta aan ka aqaano waa nin qofka markuu yahay muxuu ahaa uu rabo inuu muxuu ahaa madaxtinimo uu sameeyo waa inuu gacan furan yahay waa inuu muxuu ahaa aqoon leeyahay waa inuu go'aan gaari karaa waa inuu muxuu ahaa gar eexa uu sameyn karo oo dadka gogasha la gali karaa intaasna markaad fiirisid faalaha uu ku leeyahay Cabdiraxmaan waa nin ka soo bixi karo waa nin aqoon leh waa nin muxuu ahaa intaasoo hoggaan qaban karo waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonnimo waxaan u rajaynayaa Ilaahay garabkiisa galo annagana garabkiisaan taagana aan xildhibaan Galmudug aan ahay waxaan u rajaynayaa nin maanta Cabdiraxmaan ka fiican oo Galmudug ka soo bixi lahaa aniga Maryan ahaan inay jirto ma u maleynaayo guul iyo gobonnimo aan u rajaynaa Ilaahay ha ku guuleeyo galabtana waa galab oo muxuu ahaa farxad leh Ilaahay waxaan ga rajaynayaa Ilaahay idinkiisa inuu ku guuleysto Cabdiraxmaan waana ka bixi kara awooddaas aad baad u mahadsantahay